بعد وهرين حسود بينيا سلام يا قدوميها قولك الساحل نقاسمها جود وصارت عافماتك أقاسمها جود عسبتك جود عاصمة هرقيسة قرب الجوبتها سدوها عافماتك قولك الساحل يدعم شغالوينها عسبتك دقمة الشيخ runtii saaka waa noo farxad inaanu ka qayb galno wareejinta qalabka caafimaad ee ay u deeqeen qurba joogta gobolka saaxil ama guud ahaan Soomaaliland qalabkaas oo runtii ku yimi codsi ay dirteen maamulka caafimaadka degmada iyo bahda caafimaadka degmada aanan hubno insha Allah taala inuu wax weyn ka tariyo baahiyaha caafimaad ee degmada qalabkaas waxa ka qayb qaatay dad fara badan oo reer saaxil ah iyo reer Soomaaliland oo galwadan u yahay xuseen walaalayaal waan u mahadnaqaynaa runtii boqolkiiba boqol ilaahay waxaan rajaynayaa insha Allah taala miisaanka xasanaadka u saaro degmada sheekh sidoo sagaalatan uu sheegay waa 35 tuulo ayay degmada sheekh kuntaa hospitaalka guud wuxuu adeegaa 35 tuulo ayuu adeegaa runtii si fiican ayuu ugu hagabaxa shaqaalaha joogan waa shaqaale runtii firfircoon oo hawlkar ah oo shaqadooda ka adag oo uu galwadan ka yahay agaasimada yar waxaan rajaynayaa insha Allah taala in halkaas yeema ka saysadayso insha Allah taala waxaan ku soo koobayaa hadii Ilaahay ka dhigo hospitaalkan wuxuu dareemayaa afar caqabadood intii anagu soo gaarsiiyay agaasimuhu iyo maamulka hospitaalkuba ugu horeyn agaasime hospitaalkani waxa lagu sameeyay ribaldi baa lagu sameeyay ribaldi ka lagu sameeyay waxa laga qaaday waterproofki xaga sare markii waterproofki laga qaaday wuxuu sameeyay inuu darooro oo biyaha soo daayo biyaha soo daayana waxay dib ku keeneen qaabkii laarka oo marka ay xarkaas biyo taabtaan ay soo bixiyaan ay laambada badan gubtaan runtiina ay shaqada marxaka gasho qayb kamid ah falillahi alhamdu walla daboolay oo waxa la saaray jiingad waxaana ka fargareeyay kharashka ku baxaya oo state ku dhawaa caafimaadka hospitaalka wuxuu soo saaray waxa dhiman inta in leeg oo isaguna ay daroorayso qaybihii ugu muhiimsanaa hospitaalku oo ay kamid tahay qaybta tiyaatarka iyo qaybta waarukuba una baahan iyaduna insha Allah taala in wax laga qabto arinta la saaro jiga la saaro soo hospitaalku uu shaqeeyo si fiican arinta labaad ee hospitaalku dareemayaan waxa weeyaan waxa hay'adda HPA muddo 4 sano ka hor ay keentay solar 32 panel iyo 30 battery 4 sano shaqeynayeen hadda way gubteen oo way damage garoobeen mana shaqeeyaan leelkaas imika ay hospitaalku isticmaalaan wadalka private-ka ee degmada kharash ku baxa bishii laga qaado hospitaalka ay waa $1500 ilaa $1800 Vermont oo la isticmaala iyadoo kharashka inta leeg uu hospitaal ka baxayo solarna taalo infartaradii yaalaan kaliya waxa ka dhiman baytariyadii in la iska kaashooyna sidii hospitaalka lagu baahi doono baytariyo oo lacagta $1800 ah ee ku baxaysa leerka baahi kale oo isticmaalo caafimaad hospitaalka hadii Ilaahay ka dhigo waxa kale qodobka saddexaad oo baahi badan u qaba talaagada meedka iyo talaagada dhiigga hadii imika hooyo umulaysa oo ay dhiig baxdo waxay noqotay in suuqa laga raadiyo qofkii la dhiig ahaa suuqa laga doono wadaha hebel dhiigga waa nooc ay waqti ku qaadato la baafiyo hadii la heli lahaa talaagada dhiig waxaan boqolkiiba boqol hubaa in baahida laga raysan lahaa talaagada meedka shalay oo u dambeysay waxa hospitaalka degmada ku gooriyay in marxuum ah Ilaahay aan naxariistay hadii la sii hayn lahaa oo la oran lahaa war hal hayo hal baar sababtu dhintay waxna waxa u baahan lahayd talaagada meed hadii imika buurta gaari ku dhaco oo meedka la damco in la hayo oo waxay noqonaysaa inaan la hayn karin laba mid in la isdaafiyo iyo in degdeg loo aas labada talaagadood waa muhiim jiddan hospitaalka baahi badan buu qabaa qoliyaha qurbo joogna runtii arinta way ka shaqeynayeen in arinta la xoojiyana waan rajaynayaa insha Allah taala waxa ku soo koobaya qodobka afraad
guud ahaan gobolka saaxil waxa gacanta ku haysay caafimaadkiisu hay'adii HBA iminka way ka baxday oo qodobkaasi degmada Sheekh gaar uu saameyn gobolka guud ahaan saaxil baa uu saameeyay ka bixitaankii hay'adii HBA iyadoo mushahar siisay 130 shaqaalaha wuxuu cusbitaalka ku lahaa 13 shaqaalaha ay hore u siin jirtay dawooyinkana ay keen jirtay iminka gaabkaasi wuxuu ku soo baxsanaya wasaaradda caafimaadka in yadana insha Allah ta'ala laga hawlgalo oo meelihii la duqan lahaa hawshaas si degdeg ah looga hawlgalo insha Allah ta'ala aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan cid kasta oo ka soo qayb gashay oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka intaas ku soo kooyay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.